Turkiga ayaa Soomaaliya waxa uu ku soo kordhiyay maraakiib iyo qalab kale oo casri ah isagoo doonaya in uu xoojiyo saldhigiisa iyo dhaqdhaqaaqiisa uu ka wado dhanka Geeska Afrika. Ankara waxay markaan u xeedinaysaa arrimaha guud ee dhanka siyaasadda iyadoona mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Turkiga ay si toos ah u sheegeen inay wadaan dhaqdhaqaaqyo guud oo la xiriira howlgalladaasi. saraakiishii mas'uuliyiintu waxay dhanka kale tilmaameen in ay wadaan dhaqdhaqaaqyadaasi guud iyadoona mas'uuliyiinta ay sidoo kale tilmaameen in ay wadaan abaabulkaasi la xiriira sidii ay u xoojin lahaayeen dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee dhanka Geeska Afrika. sargaal sare oo ka tirsan dowladda Turkiga ayaa waxa uu dhankiisa sheegay in maalmihii u dambeeyay ay socdeen dhaqdhaqaaqyo iyo abaabul xooggan oo dowladda Turkiga ay ku doonayso qaabka ugu fudud ay ku gaari karto marka la eego dhaqdhaqaaqyadaasi siyaasadeed taa oo keentay in mas'uuliyiinta iyo xubnaha Turkidu ay bilaabaan sidii ay u soo gaari lahaayeen gudaha Soomaaliya iyagoo diiradda saaraya qaabka ugu fudud ee loo gaari karo dhanka iyo howlgallada guud ee lagu sugayo dhinaca amniga. warar soo baxaya waxay tilmaamayaan in mas'uuliyiin ka tirsan dhanka iyo dowladda federaalka Soomaaliya iyo Turkigu ay ka wada hadleen sidii looga mir dhali lahaa hadafka siyaasadeed ee la xiriira in Turkiga uu gaaro shidaalka Soomaaliya iyo qaabka loo soo qodi karo. dowladda Turkigu waxay kol hore Soomaaliya u soo dirtay waa toddobaadyo ka hore markab 45 cisho soo soconaya kaas oo Soomaaliya ku gaaraya marka la eego dhanka iyo xeebta si gaar ah isagoo ku xiran doona Muqdisho sidoo qorsho yahay. waxa uu soo saari doonaa shidaalka Soomaaliya kaas oo ka mid ah maraakiibta ugu cusub casrigan ah ee Turkiga uu leeyahay. waxaa loogu magac daray curadka oo loola jeedo in markabkan uu markii ugu horeysay meel ka baxsan biyaha Turkiga uu ka soo saari doono shidaalka. geesta kale waxaa jira fasiraad kale oo la dhinac dhigay isla arintaasi waana in Turkiga uu noqon doono dalkii ugu horeeyay ee Soomaaliya shidaal ka soo qodo taas oo keenaysa in labada dhinacba curad uu yahay marka la eego markabkan shaqada uu qabanayo. waa mar Soomaaliya markabkan ay ka faa'iideysan doontaa marna waa Turkiga markabkooda ayaa biyaha ka baxsan dalkooda ka qodi doona shidaalka. Ankara waxay sheegtay inay xoojin doonto ciidanka difaaca badda 16 bisha Isniinta ayay dowladda Turkiga sheegtay in uu bilaaban doono howlgalkeeda guud ee lagu adkeenayo dhanka amniga badda taas oo keentay in xukuumadda Ankara ay markaan ogaato xaalad walba iyo dhaqdhaqaaq walba oo la xiriira arintaasi. ilaha kala duwan ayaa dhanka kale waxay warbaahinta Xuraansi u sheegeen in dowladda federaalka Soomaaliya maalmihii u dambeeyay ay waday dhaqdhaqaaqyo guud oo la xiriira qaabka ugu fudud arrimahaas oo idin loo gaari karo. waxaana mas'uuliyiintu intooda badan ay bilaabeen in ay sameeyaan dhaqdhaqaaqyo guud oo la xiriira qaabka ugu fudud ee loo gaari karo hadafka siyaasadeed ee la xiriira howlgalladaasi guud ee soconaya. muddo waxaa socday abaabul iyo qorshe weyn oo la xiriira arintaasi iyadoona mas'uuliyiinta iyo xubnaha kala duwan ay bilaabeen inay sameeyaan dhaqdhaqaaqyo guud oo la xiriira gudaha Soomaaliya. saacadihii hore sabtiga maanta waxaa la arkay diyaarado Turkiga uu leeyahay oo casri ah kuwaas oo dul maraya qaybo ka mid ah dhanka iyo Muqdisho gaar ahaan dhinaca badda. diyaaradahaas ayaa lagu sheegay inay ahaayeen diyaarado kale oo dheeraad ah oo dowladda Turkiga ay keentay gudaha Soomaaliya kuwaas oo lagu talagalay inay qayb ka qaataan howlgallada guud ee soconaya. Turkiga wuxuu doonayaa in markan in ka badan 10 markab oo kuwa dagaalka ah ee uu leeyahay in Soomaaliya ay si joogto ah u joogaan kuwaas oo la sheegay inay ilaalinayaan markabka shidaalka qodaya si aan loogu soo dhawaan ama u saameyn colaadda bariga dhexe ka taagan. Ankara waxay in muddaha waday dadaalo kala duwan iyadoona arrimahaas oo idil ay ku sheegtay inay ku doonayso qaabka ugu fudud ee loo gaari karo in la xargaadkeeyo qorshaha siyaasadeed ee kala dhaxeeya dhanka iyo dowladda federaalka. dowladda Turkiga waxay dhanka kale sheegtay in madalada siyaasadeed ee la ku aadan arrimaha guud ee la xiriira dhanka dibadda Soomaaliya in ay diiradda saareyso waa waxyaabaha ugu badan ee soconaya marka la eego arrimaha dhanka siyaasadda. geesta kale ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa waddanka Imaaraadka Carabta safar qarsoodiga ku tagay saacadihii u dambeeyay. Abiy ayaa kulan gaar ah la qaatay madaxweynaha Sultanka Imaaraadka Carabta. dhowr fasiraad ayaa laga bixiyay waa midda koowaad
in imaaraadka carabta uu doonayo inuu dib u soo celiyo qorshaha damaca badda cas ee Itoobiya maadaama culays xoogan waddankaas uu kala kulmayo waddanka Iiraan tan kale waa in imaaraadka carabta uu ka shaqeynayo qaabkii Itoobiya ay ugu soo wajiijeysan lahayd dhanka Soomaaliya taas oo ka dhigan in jabka iyo culayska xoogan imaaraadka uu la kulmayo dhanka Soomaaliya uu ka soo wajahayo marka la eego dhankaasi Itoobiyana dhammaan deegaanada dowlad goboleedyada dalka ee ku dhisan nidaamka federaalka in xuduudo ay leeyihiin taasoo keeni karta in Itoobiyaanku ay bilaabaan dhaqdhaqaaq siyaasadeed oo la xiriira arrintaasi Soomaaliya ayaa waxa ka socda dhaqdhaqaaqyo xoogan oo la xiriira dhanka geeska Afrika iyo qaabka badeeda ay u xafido leh taasoo keentay in culayska siyaasadeed uu ku sii kordho marka la eego dalalka baratamaya imaaraadka carabta Turkiga Sacuudiga Masar iyo dalal kale ayaa ku loolamaya qaabka ay u soo dhaweysan karaan Soomaalida taasoo la xiriirta in la gaaro hadafka siyaasadeed arrintaas la xiriira wixii warar iyo dhacdooyin arrimaha ka soo kordha baahinteena tan xigta warbaahinta Xuraansi ku daaw